السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا 10 كيلو تبنات قيبتي سلابات كسب سنة كونسترينتيجا كاس أو أنو ما أنت كبران تونو بريمري كيجا وحنا نوران كرنا متشرو تيبل بلا بريمري كي لسمايا because of وحويان وكلام ككلياته لو كلا جرنايو روسك كقويه تيبل كاو سوتوا بريمري كيجو روكستا وحاوسيا identification column oo ah unique column gaar ah oo lagu aqoonsado rowgaas iyo data ku kaydsan intaba faa'iidooyinkiisana waxa kamid ah adiga oo si fudud isla mar ahaantaana degdega ku hela row kasta ama base data kasta oo table-kaaga ku jirta sababtoo oo ah ma dhacdo laba row ama laba qof oo isku macluumaad ah isla mar ahaantaana kuugu kaydsan database-kaaga impossible way inay dhacdo primary key isagoo meesha ka jiro haddaba primary keygu waa unique isla mar ahaantaana ma ogolaado in isagoo maran la dhaafo ee waa in ID-ga ama basaan oran karo primary keyga waa in la geliyaa marka data la store gareynayo waa in primary key la socda haddaba data primary-ga aan lahayn iyo data primary keyga leh maxay ku kala duwan yihiin table-kaaga bila primary keyga ah boqolaal qof ayaa isku ekaan kara because of wax kala xadeeyay ma jirayaan oo macnaheedu waxa ka maqan shayga lagu kala garan lahaa dadka balka waran magaadii shirkadaha telefoonka kala furan telefoonskooda mid ah waa lagu dawxaa runtii confuse baa dhici lahaa balse ma jiro laba qof oo isku telefoon ah sidan si la mid ah primary keyguna ma aqbalayo in ay jiraan laba qof oo isku identification sidaas ayuu primary keygu u shaqeeyaa balan ku soo qaadano tusaaleheena sida aad halkan ku aragtaan waxa weeyaan 10 keeni kan ka horeeyay ee aynu ku soo qaadanay notnal hadii aynu magaasna raahno halkan bal waxa aad ka raacaysaa primary key kadibna aynu seekooda isku garayno kurigan winaga diiday sababtoo ah wuxuu ku leeyahay database-kan la yiraahdo UOH already u jiraabadii macnaheedu mar horeba la sameeyay haddaba ka soo qaad table-keeni ma delete garan karno oo waxay nagu jira data aad u fara badan oo waxaynu sameynay biri hore haddaba waxaynu ku khasbanahay in aynu balse kale uga digaroona ama base aanu maarayno laba siyaabood labadaba waynu ku soo dari karnaa primary keyga wada koobaade inagoo halkan tagna tools kadib doorana options isla mar ahaantaana ka sii doorana designer kadibna halkan tagta ka qaadna oo macnaheedu waxaynu oranayaa table-ka dib u sameeynta delete garayso kale taasina runtii dib baynu u tooxanay macluumaad baynu ugu jira kadib kanaynu tagta ka qaadana kadibna oo kawen lana kadib waxaynu tageynaa table-keeni waxaan ku furanaa design sidan waynu ugu sameyn karnaa waynu halkan tageynaa kadibna primary key oranayna waa talabaade kanaynu iska masaxan kadib query ahaan balaynu ku soo gelin waxaan leenahay alter kadibna waxaynu qoraynaa table kadib waxaynu sheegaynaa table-ka magaciisa waxaan leenahay arbitrary kadibna constraint-ga magac ayaynu sameeynaa si aynu hadii aynu mustaqbalka uga maarno aynu u delete garan karno inagoo aan hadana table-keeni mar labaad masaxin waxaanu u bixinay HHA kadib waxaynu ku xigsiinaynaa constraint-ka aynu doonayno inuu ku soo darno table-kan la yiraahdo UOH oo aan leenahay waxaanu doonaynaa inaynu ku darno primary key kadibna waxaanu basti gareynaa column-kii aynu ku xidhinay primary keyga oo ah ID sidaas aynu ku isku gareynaa query-geeni waxa uu leeyahay completed successful sidee ayaynu hadaba ku ogaan karnaa in table-keeni primary keygi uu samaysmay aynu right click niraahno kadibna balaynu data soo gelino datadaasoo isku number waxaan isku ekaysiinaynaa laba ID-ga koowaad 1246412 bay leenahay isla mar ahaantaana aynu bal magaciisa halkan gelino markaynu table-keeni rowga datada u gelino balaan isku dayno inuu tab taabano isla mar ahaantaana aynu ku gudubno rowga ku xiga wuxuu ku leeyahay waxa jira primary key violation lama ogola
wax duplicate ah sida ay tahay waa inaad ka bedeshaa lambarkan oo aad id kala siisaa uu leeyahay okay baan leenahay waxaynu ku daraynaa number 5 kadibna tab ayaynu taabanaynaa kadib sidaas ayuu uga gudbayaa oo ay ka dhigan tahay table-keeni primary key ayuu leeyahay oo data isku mid ah marnaba lagama yaabo oo duplicate inay ku soo noqnoqoto sidaas ayaan u shaqeeyaa constraint primary key ah casharkeena gaaban halkan uu joogo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi